iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay sii kordhayeen dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 isla markaana dadka ugu badan ee cudurkaas u geeriyoonaysa ay oksijiin lahaan ay u dhimanayeen ayaa shirkadda Dahabshiil Group waxay maanta ay ku dhawaaqday inay sameyn doonaan shirkad sameynaysa oksijiinta. kulan kooban ay ku yeesheen gudaha isbitaalka Martiini ayay la qaateen wasiirka caafimaadka ee xukuumadda xilgaarsiinta. kulan kooban ay ku yeesheen gudaha isbitaalka Martiini ayay la qaateen xubnaha ka socday shirkadda Dahabshiil Group, wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda xilgaarsiinta Dr. Fawzi Abikar Nuur, iyagoona u ballan qaaday in ay muddo 2 bilood ah ay warshadaas ku sameyn doonaan. Dr. Cabdisaaq Jalaaludiin oo ah agaasimaha isbitaalka Martiini ayaa ugu mahadceliyay shirkadda Dahabshiil Group ballanqaadka ay u sameeyeen. Coronavirus hirka labaad sidoo kalena ay uga qayb qaateen hirkii koowaad. waan uga mahadcelinaynaa runtii isbitaalka Martiini waa isbitaal public ah, waa isbitaal dadweyne, waa isbitaal shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo dawladda Soomaaliyeed oo runtii la wada leeyahay. wuxuuna u baahan yahay inuu isbitaalku ku shaqeeyo isku tashi, gaar ahaan ay isku tashadaan dadka deeq bixiyaasha ee gudaha ah. waqti badan runtii isbitaalka ku maareynayna culays badan ka jiray, kaalmo dibadda ka imaata meel kale la sugo. Dahabshiil iyo shirkadaha la mid ah waa runtii dadka badbaadin kara isbitaalka. ku dhawaad 70 qof oo coronavirus qabta ayaa maanta u jiifto. Garaad Sabriye oo ku hadlayay magaca shirkadda ayaa u ballan qaaday inay si degdeg ah warshadaas u keeni doonaan gudaha isbitaalka Martiini. wararta Dahabshiil Group waa hay'ad weyn oo ganacsi oo khaas loo leeyahay. marka maanta waxaan isku nimid ujeedadana tahay inaan meeshaan ka laanji karayno inagoo Dahabshiil Group inaan ku deeqno ummadda Soomaaliyeed iyadoo markii ugu horreysay ahayd medical oxygen production storage system weyn oo soo saaraya ilaa 250 silindar maalintiiba. wax soo saarkiisa waxaan ugu deeqaynaa isbitaalka Martiini. innaga ayaan maintain garayn doona insha Allah, maintaininkiisa bixinayna oo joogayna. innaga ayaa hadduu ciladaas ka sameynayna. Dahabshiil markii ugu horreysay bixisay maahan waxaan iyo wax la mid ah. maanta nala joogo gobolka Gado ayaa waxaan ka wadnaa biyo dhaamis iyo howlo fara badan oo ku saabsan gargaarka bini'aadamka. waxaan rajaynaynaa intii karaankeen inaan sida ugu dhaqsaha badan keenno warshadaas oksijiinka sameynaysa. Dr. Fawzi Abikar Nuur, wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ugu mahadcelisay shirkadda Dahabshiil Group garab istaagan ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19. codsigii loo jeediyay bulshada weyn Soomaaliyeed dadkii ugu horreeyay soo gudbay inaad ka qayb qaadataan oxygen plantigan isbitaal Martiini aad ugu deeqdeen inaad keentaan aad maintain garaysaan. waxa uu daboolayaa baahida ugu weyneed oo isbitaalka uu leeyahay. waxay u gargaaraysaa ummadda inta timaada oo hadda loo dhaaminayo oksijiinka inay si toos walwal la'aan iyo ma aragta caqabada ugu weyn inaad ka xalisaan. marka waa soo dhaweynaynaa, aad idinkaga mahadcelinaynaa. asaad sheegteen Dahabshiil dadka u gargaara waayo taariikhday soo bilaabatay gobollo badan, meelo badan. isbitaalkan naftarkiisa wayfkii ugu horreeyay sanadkii hore gurmad ambulaansiyaad keenteen, waa garab taagneedeen, taleefanadii gurmadka ahaa qaybaad ka dhisteen. marka waa mahadsantihiin, ilaahay ajar ha idinka siiyo. waxaan anigu ku hadlayaa magaca wasaaradda caafimaadka shaqaalaha isbitaal Martiini. waxaan idinkaga mahadcelinayaa iyo dadka bukaanada ka faa'iideysan doona. ilaahay wuxuu yiri aan idin naxariista isu naxariista. tan waxay tusaysaa dhiirigelin doontaa qof allaala qofkii maaragtay wax awooda in maaragtay mar walba qofka kale uu u gargaaro. xanuunkan waa xanuun aad u fidaayo, ka xawli weyn fididiisa iyo dhimashadiisa. Cabdifataax Muumin, 5TV, Muqdisho.